السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كني وادردر ميديا جروب وياي waxaa laga yaabaa inaad la yaabtaan xasan toob oo ka soo hadlaya youtube dhowr youtube channel oo la furtay adeer iska ilow waa halkan goobta rasmiga ah ee durdur media group. durdur media group miyay ka quusatay maya. durdur media group weli kama aysan quusan janaalkii hore, waayo waxaa weli ku wadnaa injineero oo arrintaasi xalinaya. waya xasan toob iyo liiban shorla ayaa hadda soo fadhiistay stuudiyaha. sababta janaalkan durdur media group ay ku qoran tahay u soo fadhiisteen maxay tahay? sababta aan u soo fadhiisanay waxa weeye janaalkan durdur media group ay ku qoran tahay waa barteena rasmiga ah ee sida ku meel gaarka ah inta laga helayo barteena weyn durdur media group. runtii maalmahan youtube-keenii hawada ayaa laga saaray kadib markii qof nala shaqaynayay uu naga tagay habeenkii, subaxiina salaad subax la jabsaday. waxaa wadnay ka dhalinyaro ahaan, maadaama dadka dhalinyarada ay wax badan raadinayaan, waxaan cafinay guud ahaanba dadkii dhibaatadaas noo geystay. waxaan cafinay dhammaan dadkii dhibaatadaas noo geystay, cid kasta oo ay tahay waan cafinay. waxaa lagu noolyahay waa adduunyo. arrintan cafinta waxay ka dambeysay kadib markii aabba mustaf isaaq maamow uu amar ku bixiyey, uuna yidhi dacwadda iyo waxa aad wadaan joojiya, waxa aad wadaan joojiya, maadaama uu isaga nagu dhahay oo go-aankaas anagoo meel kasta tagnay uuna yidhi joojiya haddii wiilasheeda aad tihiin. sababta loo joojinayan waxaa weeye uu yidhi in ay ka wanaagsan tahay samarka. wax waliba oo laguu geysto, dhib kastoo laguu geysto, in la samro ayaa ka muhiimsan in maanta oo dhan lays haysto. annaga waan cafinay wax walba oo lanoo geystay, si kastoo ay ku dhacdo. bani aadanka waxaa la ogyahay markii ay arrin ku dhacdo in uu xanaaq, uu cirka ama furka uu tuuranayo, wax uu awoodana uu sameynayo. laakiin annaga aabbaheena uu na qabsaday, uu na cishtay, uu dhahay arrinta aa wadaan joojiya, samaystana janaal si ku meel gaar ah inta laga soo celinayo durdur media group. sababta durdur media group aan ugu qorana waxaa weeye taageerayaal badan, maadaama aan annaga leenahay taageerayaashaas ay kala joogaan dal iyo dibad, ayaan muhiim ahayd in aan u sheegno taageerayaasheena in aan bartan kusoo laabanay. runtii waxaa jira janaalo fara badan oo lanaga samaystay. waxaan leenahay soomaaliyey, xasan toob halka aad ku arkaysid sabskaraab u saar. waxaa laga yaabaa dadka qaar وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. وبالقدر خيره خير إيه شر إلهي حقي سك أعطي، وأن كوخنا حسنا هي قدرت على إيه وحنا خبصدي. وح الله قري عد في سماه. وح الله قري عد في سماه. عد عن عيننا ملهن وح والبو عدين وح صودن أبا أيانا دهاي وح أشيء كرتين مله. qadarta alle ayaa nagu dhacday, waana cafinay. dulmi ma duugmaayo ee wuu soo daahira. runtii soomaaliyey wax walboo nagu dhacay waa iska cafinay, laakiin ciddii dembiga gasho yowmilqiyaam ayaa la qabsanaya. cid kasta oo dhaaratay dhaartii ayaa celinaysa. cid kasta oo ka dambeysay dulmi ciddii gashay dulmigi way kasoo daahiraysaa. marka annaga isjiijiid iyo baqbaq iyo ma gali karno, maadaama uu aabbaheena mustaf isaaq uu reer suuq bakaaraa yahay, uuna dhahay niyahow arrintan joojiya, suuqley aniga ahay, waxaan aagadow ordoosin joojiya, wax walbaa dhici karo, duniyaa nugu loon yahay ee joojiya. waayahay aniga waxaan u mahad celinayaa taageerayaasheeda i garab istaagay, taageerayaasheeda aad iyo aadka i garab istaagay muujiyey xasan toob welcome back. xasan toob wuu soo laaban doonaa. sababtaas waxaa kaliftay inaan janalkan samaysano
aabe oo dhahay janaal kumeel gaara sii sameeya intuu janaalka weyn kasoo laabanayo waayo qareeno caalami ah ayaa la qabtay oo arrintaasi ka shaqeynaya maadaama la jabsaday ciwaano iyo waxbaa meesha ku qoran ma rabna inaan wax sheegno laakiin maadaama la jabsaday oo noo caddaatay oo ciwaanadii iyo wixii dhan aan aragnay qadarta allah ku qanceenaa janaalkan sida kumeel gaarka ayaad nagala soconaysaan weliba ma noqonayso hal xabo waxaa waaye daruuri adeer durdurmeedii waxaa loogu bartay inay 5 ilaa 6 ay soo geliyaan sida ma ka caajisi doona ka badan maayna ma ka niyad jabi doono ma niyad jabi doono mana niyad jabi doono niyadeeni marnaba ma liidnaan doonto guusha waxay ka bilaabataa guusha halka ay dadka kale guushooda ku dhamaato runtii taageerayaal fara badan oo dal ii dibad joogay oo aniga arinta igu dhacday ku dhacday shirkadda durdur media shaksi kuma dhicin ee shirkaday ku dhacday gudoomiye gulfaam oo meel kasta ordayay gudoomiye gulfaam oo meel kasta u ordayay xasan toob oo meel kasta u ordayay muddo kadib halkan ayaan fadhinaa waayo daawadayaashii ayaa naga codsaday janaal kumeel gaara hala furo subscribe hala saaro ha lagu yaaco hala sheegayo wejiga liiban shoor laba ujeediin wejiga liido sugeel liido siido lugeel waa arkaysiin wejiga baana balbalaar wejiga faaduma VIP wax walba oo comedy ah waa heli doonteen annagoo cidna aan duqeyn doonin waa macquul xasan toobkii akeysay janaalkii intaasoo kun marayay ee managerka ka ahaa iyo gudoomiye gulfaamkii oo maalmahan miidiyaha ordayay oo janaal cusub samaystay waad la yaab in aad arrintaasi aad fajac iyo ama kaa kugu noqoto sababta waxa weeye dadaalka ayaa muhiim ah wax walboo kugu qoranna way kugu qabsanayaan waxaan kuu qornayna kuma qabsanayaan marka daawade waxaan ku faraxsannahay qadarta alle waan ku qanacsannahay subscribe hadda commentiyada horta ha laga buuxiyo like horta bac ku sii like horta bac ku sii meel kale maaha durdur media group waa bis durdur media group waa durdur media group waa wejiga xasan too meesha joogo wejiga liiban shoorla photoshop maaha video shop waa midin dhiirabaya asxaabta video shop ayaa liban waxaa waaye bahashaan Mr. Gele isoo dhiibay aad u maasay Mr. Gele in the building kuma iloobin adeer waxaana qabsaday qadar allay ahayd waxaan u mahadcelinayaa maansan oo arintan isoo wacday oo dhaqaalo culus aan idinku deeqaynaan dhahday runtii waa idinka ajiibnay haddaan dhaqaalo wixii caawinaada u baahno maxamed kaafi iyo saaxiibkeyga abahaa isoo wacay oo idhahay waxa dhaqaalo u baahantihin waa idinku caawinayaan dhahay waa ku mahadsantihiin gurmadkii ugu horeeyey aan aragna waaye runtii abahaa iyo maxamed kaafi sheekh waa ku mahadsantihiin sidoo kale asxaab fara badan fartun belbelaarka xaaji degdeg waa mahadsan tahay king CK films and flags aada u mahadsan tahay waxaan aada ugu mahadcelinaa taageerayaasheena oo dal iyo dibad jooga caawa farxadda iga badatay wararka qaar xataa waa qaldaa sababta u qaldaa xasatoobkii caadiga ahaa ma ihi sababtoo xasatoobkiisu waa soo laabta xasatoob dadku waxay xasatoob ma soo fadhiisaayo waa gaabana aye maadaama la jabsado qadarta alla ayaana qabsatay wax kasta waa la samayn karaa wax la yaqaano waa wejiga wax kasta waa iska adduunya dadaalka aan annaga bilownay waa dadaal horumarka aan annaga wadno waa horumar wax waliba waa sameynaynaa daawadayaasheena qiimaha iyo qaaya badan meel kastoo aad joogtiin commentiga laaga subscribe-ka shareka haddaa la iloodin sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa durdur team is coming back has a top team coming back okay all Mr. Gele in the building Turkiya kusoo laabtay shaarka iisoo dhiibto waa kana waa kaa gudoomay jaakadaa soo dhiibto waa tana weli mala duubin iyadoo la duubi rabo janaalka la kaca ma fahantaade habeenka ku xigtay ala duubi rabay marka anigoo hurdeeno aa la shaqaystay laakiin alxamdulilah qadarta alla waaye waa ku qanacsannahay wax walbo aabaheenaana dhahay cid bani aadan ha qabsanina wax dacwo iyo hebelkaa iyo waxaan dhan joojiya ilaahay dartiisii ku hakaya qadarta alle ku qanca
dulmi ciddi gashi way soo baxeen dulmiga mudaharayo okay daawadayaashana qiimaha qaaya badan cid aan wax ka sheegana mala dad badan oo ku farxaa jiray oo soo dhahay qoslay dhaaq waa ku farxday laakiin xasatoob waa soo adiga aabaha waa jooga xasatoob waa linkii ku soo galiyay adiga aabaha waa jooga okay karbaashka jooji liiba sharla dadka ku farxay waxaa leeyahay ma fiicna inaad ku farxdiin aad aan ugu xumahay runtii way xanuujisay markaan arkay shaksi ku farxayo oo dhahayo waryaa brother haye kawan haye warisi dhahayo runtii waxaa ogtihiin durdurbeediya in hadda ka hor janaal hawada laga saaray hadda ka hor oo mar hore ahayd uu shaksigii ila joogay xilligaas hal shaksiyaa joogay uu niijabay niijab waxa la yiri adeer guul waxaa arki doonteen fariinta habeen dambe shaqada aan qaban doono heerka ay noqon doonto habeen dambe shaqada aan qaban doono heerka ay noqon doonto inta taageerayaal durdur isku ahaa isku sheergareeyaan linkiga Xasan Toob is coming back sababtoo ah waxaa qasab noqotay temporary in loo hadlo waayahay hogaamiyaha durdurmeedii oo maalmahan idaacadaha iyo youtube-leeda aan ka degin ayaa hadda khadka ku jira oo go-aankan aan qaadanay isaga laftirkiisa dhinac ka saxiixay maadaama uu arrintan aaba Mustaf Isxaaq maamow uu soo go-aamiyey gudoomiye gulfam soo dhawow waa mahadsan tahay Xasan Toob liban sholano islimeed oo mahadnaqaya marwada durdurmeedii Fatima VIP xubnaha kale shaqaalaha sida lugeel bala barbanaarka dhammaan mujtamaca Soomaaliyeed durdurmeedii ku runtii marka hore waxaan leeyahay waqti iyo waayuhu hadin wacnaado mid kale runtii hadaan u gudagalo sida dadka inta badan bay wada og yihiin durdurmeedii runtii waxa dhacday masiibo koleeto bini'aadan masiibooyinka laba kale bini'aadanka mid gacantooda ku kasbadaan mid xagga la ka timaado laakiin mid wuxuu ahaa tan bini'aadan sababteedii lahay runtii inaan labada cisho la soo dhaafayaan media especially YouTube-ka durdurmeedii laga waayo laakiin nuxurka sheekada waxay tahay sabarka nolosha lagu jaangooyo waxaana qaadanay waanooyin maadaama shirkadda aragtiyo badan ay ku dhisan tahay silmadan waxaan kaloo qaadanay waanooyin kaloo ka yimaada taageerayaasha durdurmeedii group oo ku kala nool dunida dacaladeeda iyagoona dhahay inaad hadda maxaan ku raada challenge garaysaan dadka wax ka tabanaysin naftooda waxaa laga yaabaa inay wax weyn u tahay si fiican gudoomiye waa si kumeel gaar oo situationka hadda dadkan ka bixinayo laakiin kii kale sida hore baa u sheegtay qareeno iyo dad mas'uuliyiin iyo dad kale oo maxaan ku raada heer caalami ah u guda jiro marka arintaasna ka soo imaan doona marka bulshada qiimadeeda kala duwan bulshada qiimadeeda kala duwan ayaa ila soo hadasho waxay tiri iikaada Xasan marka bulshada qiimadeeda kala duwan ayaa ila soo hadashay kiiskan isgarab istaaga marka laga tago runtii aad kaga maanaqay Soomaalida waxay dhaheen war soo lagama yaabo inuu qaato dhowr cisho isbuuc 5 maalin kadib adiga soo marxalad oo maalmo qaadanayso ma aha jawaabtu waxaan ka dhigaa laakiin waxay tahay magaran laakiin waxa laga yaabaa in bariska timaado sidaas macquul ma anaga intaas masiib ma karno media dadka media nagu hayo YouTube-ka anaga naanay idinka waaye waxa u baahanahay mid kale oo ku meel gaar inaan sameeyno waa dadka markaan ku soo wargeliyo isla ka okay waayahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay gudoomiye maxamed muuse amiin gulfam sababtoo ah dadka taageerayaasha ah oo dal iyo dibad jooga ayaa aad noo soo wacaya sababtoo ah marka looma dulqaadan karo macnaha wicitaankii oo khadka ku jira gudoomiyaha ayaa la soo wacaya siday noo jecel yihiin waaye daawade waxaa yaabi igu yaab badnaa liibaan waxaa ka mid a markii aan youtube-kii hawada laga saaray oo shib la dhahay dadka waxay leeyihiin Xasan Toob walaalo soo laabo durdurmeedii walaalayaal soo laabto telefoonka waxaa ku dhahay maxaa kaa gala loo soo wacay hadda halkan ayaa si ku meel gaar ah nagala socon kartiin daawadayaasheena qiimaha qaaya badan waxaa arki doontii barnaamijyo aad iyo aad u xiiso badan oo aan ahayn challenge iyo qof wax ka sheeg cafi walaalka
waana cafi cafi walaalka wax walbo waa cafis marka waa la dhimanaa adduunya waaye dulmi ma filan waf walaalka ha dulminin walaal adduunyo waa meeshaan muddo koobanaa la joogaa cid kastoo kiiskan kulagu yeelato yowma alqiyaama waa loo soo istaajinaa way ka soo baxaysaa cid kastoo xaqdaradan samaysay fududaysay hebel ma dheheen fududaysay wax ka og yowma alqiyaama iyaga ciribtooda meesha ku dambeyn doonto ilaahay og marka daawadayaashan qiimaha iyo khaayaa badan waxaa idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo